Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xog ogaal. Maanta waxaan falanqayn doonaa filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Axe Giant. Filimku wuxuu ku bilaabanaa koox ka ganacsato jarista geedaha ayaa kadib markii ay hawshooda dhammaystaan waxaa soo weeraraya dibi aad u weyn. Mid ka mid ah raggii ayaa wuxuu dilaa dibiga. Ninkii lahaa dibiga oo guud ahaan dadka caadiga ah ka duwan ayaa wuxuu arkaa in dibigiisa la qashay lana jarjarayo si loo cuno hilibkiisa. Kadib wuxuu soo weeraraa raggii dilay dibigiisa wuxuuna mid mid u dilaa dhammaantood. Kadib koox dhalinyaro ah oo hogaaminaya sarkaal ayaa waxay booqasho isugu jirto khibrad iyo tababar waxay ku aadayaan kayntii uu ku noolaa ninkii faaska sitay. Waxay imaanayaan goobta waxayna degayaan guri meesha ku yaalo. Qaar iyaga ka mid ahna waxay seexanayaan bannaanka iyagoo samaysanayo teendhooyin. Waxaa ku soo biirayo oday meesha degan wuxuuna ka qarinaa ninka kayntan jooga iyo taariikhda meeshan ay leedahay. Kadib waxay bilaabayaan tababarkii ay ku mari lahaayeen kaynta. Kadib waxay bilaabayaan tababarkooda ay ku marayaan kaynta iyo buuraha. Kadib markii ay cabaar meel ku nastaan waxaa israacayo laba wiil oo ka mid ah dhalinyarada si ay bal meelaha u soo fiiriyaan. Waxay arkayaan qolfoof xoolo waana qolfoofta dibigii laga dilay ninkii faaska sitay ee ku jira kayntan. Waxay hore u soo qaadanayaan mid ka mid ah geesaha dibiga iyagoo dib ugu soo laabanaya gruubka. Waxayna sii wadanayaan safarkooda. Bunyan oo ah ninka faaska sitay ee kayntan ku jira wuxuu dib ugu soo laabanaa qabrigii dibigiisa. Wuxuuna ogaanaa inay wax ka maqan yihiin qolfoofta dibigiisa. Aad ayuuna u xanaaqaa.
kooxda waxay sii wataan socodkooda. kadib socod dheer kadib waxay go'aansanayaan inay meel ku nastaan, laakiin waxaa gadaashooda ka imaanaya Bunyan oo sita faaskiisa weynaa. wuxuuna kala jaraa gabar ka mid ahayd kooxda. kadib markuu dilo gabadha, kooxda way kala cararayaan iyagoo aad u naxsan. kadib Bunyan wuxuu si keliisa kaga hor imaanaa kooxda, wuxuuna kala jaraa sarkaalkii kooxda hogaaminayay. sarkaalka wuxuu gabdhaha ku boorinayaa inay cararaan kana baxsadaan meesha. sarkaalka wuxuu ku qaylinaa Bunyan si uu waqti ugu dhumiyo gabdhahana ay u baxsadaan. kadib Bunyan wuxuu ku istaagaa sarkaalkana meeshuu ku dhimanaa. waxaa ishelaya labadii koox, si wada jir ayayna u baxsanayaan. waxay dib ugu soo laabanayaan gurigii ay ka tageen. waxay go'aan ku gaarayaan inay ku baxsadaan gaariga. kadib markii ay ku fashilmaan kicinta gaariga, waa iska soo laabanayaan. Bunyan wuxuu jiidanayaa gaarigii. waxaa dib ugu soo laabanaya odaygii, wuxuuna kula talinayaa inay Bunyan u celiyaan geesaha dibigiisa, sidaasna ay tahay sida keliya looga badbaadi karo. waxaa isbiimeynaya wiil ka mid ah kooxda, wuxuuna go'aansanaa inuu Bunyan dib ugu celiyo geeskiisa. wuxuu cod dheer ku leeyahay inuu u soo celiyo geeskiisa
wuxuu nagu dhex tuuraa keenta. kadib Bunyan wuxuu soo celinaa geeskii wuxuuna ku dilaa yarkii u soo tuuray markii hore. Bunyan wuxuu ka soo baxaa keenta wuxuuna jiidanaa yarkii. kooxda waxaa laga weynaa wax war ah waxaana ka soo war doonaya sarkaal kale. wuxuu arkaa meydka saaxiibkiisa wuxuuna ogaanaa inay wax weyn khaldan yihiin. kadib Bunyan wuxuu kooxda ku soo weeraraa guriga isagoo faas la dhaca guriga. wuxuu meesha kala soo baxaa gabar ka mid ah kooxda. kadibna wuu dilaa isagoo ku dhufanaya geedaha. kadib waxaa tooganaya sarkaalkii kale ee gurbad ku imaaday ilaa Bunyan uu sarjoog ka dhaco. waxaa foodo sameynaya odaygii meesha loogu imaaday wuxuuna dilaa yarkii midooba. kadib Bunyan wuxuu soo tuuraa faaskiisa waxaana halkaas ku dhimanaya odaygii. kadib sarkaalka wuxuu la soo baxsanaya gabdhihii ka soo haray tiimka waxaana ka hor imaanaya Bunyan wayna ka badbaadayaan. kadib waxaa shil la galaya gaarigooda waxayna ku qasbanaanayaan inay lugahooda ku baxsadaan. waxay arkayaan buundo laakiin waxaa isla markii ka soo dababoodayo Bunyan wuuna ciirsanaa. waxaa ka xirmayo albaabka buundada laakiin waxaa u soo gurmanayo koox hubaysan. xabad ayay kor ugu ridayaan si ay u soo jeediyaan. markuu soo jeedsadana xabad ayay hubinayaan ilaa uu ka dhinto kana dhaco buundada. filimkan halkaas uu ku dhamaanaa. haddii aad ka heshay subscribe saar channelka si aan u soo badno filimada noocan ah. followna dheh page-keena ku leenahay Facebook
iyo TikTok. Mahadsanidin.